بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaan doonayaa inaan kulli kelmaad ka ilaahdo sidan kala galay oo sabab fitan iyo fidnada kulli dalka laga wado ama bulshada Soomaaliland dhexdeeda laga wado inaan kulli kelmaad ka ilaahdo waxa markii hore nabiga sallallahu alayhi wasallam al fitnatu naa'ima baa nabiga fidnadu way hurudaba nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin saban kastoo lagu jiro fidnada cid baa kicisa markaynu dub milcsanno bulshada Soomaaliland dhibaatooyinkii iyo dagaaladii iyo mashaqadii hore u soo martay fidnada waxa abaabuli jiray oo kicin jiray waxay ahaayeen nin hogaamiye kooxeeda nin siyaasiya nin midowga Sofiyeed wax ku soo bartay ayaa fidnada awal kicin jiray laakiin sabankan aynu maanta galay fidnada dalkan de waxa weeyaan ka jirta ama laga wado waxaan u nisbaynayaa anigu saddex mid waxa weeyaan gacan ku dhigle aan cadaab ka yaabayn midna waa af ku dhigle qurba jooga midna waxa weeyaan cumaamad ku dhiigle ragga sabankan maanta cumaamadaha iyo koofiyadaha mustambeedka ama marjii loo noqonayay oo aad moodo inay fidnada Soomaaliland ay qayb ka yihiin siiba fidnada bariga Soomaaliland inta badan ka socotay ee ay 150 qof ku nafwaayeen 200 ay ku waxa weeyaan dhaawacmeen fidnada waxa weeyaan anigu u nisbaynaya waa saddex weeyaan waa gacan ku dhiglaha qoriga sita ee cadaab ka yaabayna cid walba ku saydhaya waa qurba jooga oran maayo qurba jooga oo waxa weeyaan qayb ka mid ah qurba jooga oo iyada fidnada shidaalisa oo waxa weeyaan rasaasta iyo shidaalka iyo waxa weeyaan waxa laala wixii fidnada bari ka socota ama dalkan laga wado iyagu qayb ka ah laana maxaa yeelay iyaga isu keen cadeeyo waxa bulshada maanta dhex fadhiya baraha bulshada ay isku kulanto dadka dhex fadhiya ee muusanaabaya sida dumarka ee waxa weeyaan fidnada hurinaya waa dadkii shalay ka maalin wadanka ka tahriibay ee waxa weeyaan xiriyaha gaalada ku jira ee shilimaadka yar ee caydhay qaataan ku abaabulaya waxa weeyaan fidnada iyo colaada iyo kala kaxinta ummadan kuwaas waa ka qayb waxa kaloon iyagana u nisbaynaya waxa weeyaan madaxda dhaqanka ee sabankan maanta cumaamadaha iyo koofiyadaha sita oo anigu iska saar maayo aan ka mid ahay waxaan leeyahay intooda badani waa cumaamad ku dhiigle waliba salaadiinta oo dhan ma oranayo ama madax dhaqameedka in badan oo wacan oo dhowrsan oo nabadda iyo aslaax ummadan ka shaqeynaysa waa ku badan yihiin oo aan ka tilmaami karo waxa weeyaan kooxda uu hormuudka u yahay suldaanka guud ee beesha Habar Yuunus Maxamed Xirsiqani khayr Allah siiyo isaga iyo in badan oo nasteexa iyo maslaxada ummadda ka shaqeynaysa ayaa way jiraan laakiin maanta waxa weeyaan bulshadan dhibteeda iyo kala kaxaynteeda iyo waxa weeyaan fidnada waxa qayb ka ah rag badan oo madaxda dhaqanka ka mid ah raggaasi sababta koobaad aan u nisbayn karaa waxa weeyaan xukuumadda maanta talada dalka haysa ee Muuse Biixi Cabdi Galwadeenka ka yahay kiishadiina way xiratay xaqiiqo kadinkiina way xidhay sida laajigeed rag baa maanta masaarifsanaya fidnada bariga iyo fidnada dalka gudihiisa laga wado oo iyadoo ay masaariif u tahay waliba waxaan anigu aaminsanahay salaadiinta barkood fidnada wada inay waxa weeyaan inay dabada ku hayaan dawlado shisheeye oo ay Turkigu ka mid yahay oo Qatar ka mid tahay oo Soomaaliya ka mid tahay inay dabada ku hayaan oo markii waxa weeyaan wadankan maanta aynu joogno qurbaankii kiishadii la xidhay kadinkiina la xidhay inay arintaas sabab u tahay ayaan qabaa sida laajigeed waxa leeyahay cumaamadu mustambeed bay ahayd marjac loo noqdaa bay ahayd maslaxad bay ahayd ummadda nasteexeeda iyo wanaageeda iyo ururinteeda iyo midnimadeeda ka shaqeyn jirtay laana raggii inaga horeeyay cumaamadaha sitay iyagoo aan salaadiintu inagu badnayn oo boqor badnayn oo ugaasyo badnayn chief caaqladii dad waxa weeyaan bulshadan madax dhaqameedka u ahaa raggii sameeyay afkuqaadka laba reer oo colaad muddo dheer ay dhex socday rag baa afkuqaad sameeyay oo afkuqaadka u sameeyay inay dhiiga islaamka iyo walaaltinimada ummadan ay kaba afka ugu qaadaan oo ka mid ahaa chief faarax suusle marka waxaan leeyahay war hadaynu doonayno jazaakumullahu khayr maanta xilka iyo mas'uuliyadda Ilaahayna saaray iyo cumaamadahan kuwa hawl yar maaha waxa la doonayaa inaynu maslaxada ummadda iyo midnimadeeda iyo walaaltinimadeeda inaynu kaga shaqeyno laakiin inaynu ummadda hor kacno oo fidnada abaabulno oo muusanowno oo miidiyaha 24 saacadood fadhina arintaas waxa leeyahay waa khalad aad u weyn waxaanaan bulshada Soomaaliland ugu baaqayaa inay fiiro u lahaadaan oo masaajidada uga qunuudaan ninka qurbaha jooga awlaadiisu qurbaha joogto ee maanta waxa weeyaan
ummadan ku soo duulay ee ka fog ee waxa weeyaan shilimaadka yar ummadan dhibteeda kaga shaqaynaya waa in masaajidada laga habaaraamaan lee kuwa waxa kale aan leedahay waa in fiiro gaar ah loo yeesho ragga waxa weeyaan maanta fidnada abaabulaya ciidamadaasi tana waa inay bulshadu fiiro gaar ah u yeelato oo aan hadalkooda kor loo qaadin wabillahi tawfiiq